waxay qaybsan doontaa insha Allah ta'ala laba mixwar oo ku saabsan qaybta hore dulmiga iyo tacriiftiisa iyo anwaacdiisa iyo ka digitaan laga digahayo iyo macnaha aatharta sayyi'a uu leeyahay qaybta labaad waxay noqon doontaa insha Allah ta'ala ma'al adh-dhalimin wa 'aqibatuhum marka insha Allah ta'ala qaybta hore waxaynu bayaamin doonaa insha Allah marka ana safar baan isaga badnaa waqtiga la isoo sheegay mutaakhir buu ahaa laakiin insha Allah ta'ala waanu isku day inaan soo koobo waqtiguna waa yahay walaalayaal mawduucan laga hadlayo waa mawduuc aad u ballaaran waa mawduuc u baahan waqti dheer in la siiyo waa arin haddii la soo koobana iska soo koobmaysa haddii la ballaadhiyana waqti dheer u qaadanaysa waxaan u malaynayaa haddii aan dib ugu noqonno dhaqanka Soomaalida waxyaabaha la isku waafaqsan yahay gaal iyo islaam iyo cid walba oo bini aadam ah waxa weeyaan dulmigu inuu xun yahay waa la isku waafaqsan in la iska ilaaliyana waa la isku waafaqsan xitaa hadduu gaali marka inteenan uba gelin dulmiga tacriifkiisa af carabi muxuu ku yahay iyo culimadu xagee laga keenay iyo inteenan u gelin bal af Soomaali aan ku tacriifino dulmigu waa maxay haddii hadda qof walba lagu yiraahdo dulmigu bal sheego af Soomaali muxuu ku yahay laan dulmi hadda waa af carabi waxaan u malayn waxaan dhihi lahayn waa gardaro soo sidaa ma باختصار waxa weeyaan war dulmi waa maxay gardaro way gardaradu aad bay u xun tahay walidaalika Soomaalidu way ka mahmaaheen waxay dhaheen saddex midna guul lagama helo lagama guulaysto saddex arrimood gardaro garab og iyo gaajo guri og iyo cudur geeri og bay dhaheen Soomaalidu saddexdaa arrimoodba lagama guulaystay dhaheen gardaradu marka inay xun tahay daraadeed baa sidaa loo leeyahay gardarada Soomaalidu gabayadooday kamid tahay oo way ka gabiyeen oo wax fara badan bay ka sheegeen ragga ka gabiyay ee aad oga hadlay waxa kamid ah Dhoodaan rahimahullah ninka aad buu maaragtay bahashaas meel u saaray oo u faahfaahiyay wax badan buuna ka sheegay gardaray wax baad geysataa gooriya ayaane gafki aad samaystaa batiyo godobahaadii gashi aan yarayn baad qabtaa jeer lagaa guday nimad gaasirtaa mooyee lawaan nimad gargaartaaye gurigii barwaaqaysan baad gubi taqaanaaye yani gurigii barwaaqada ku jiray ee dadku ay aad ugu barwaaqaysnaayeen ay aad maaragtay uga dhargayeen ayaad gubtaa ood baabi'isaa aan runtii aad buu u sii dheereeyay markaad sii dhageysato aad baad ola yaabaysaa ninkaas sida uu uga gabiyay bahashaas iyo xumaanteeda iyo meesha uu maaragtay la maray ninkii garaad xun wuxuu arki buu yidhi gabi ka tuuray saad u wadana ninkaadi gowrac baad ku taagi buu laba dhagood u saari wuxuu dooniba ha sameeyo suu dooniba ha ahaadee aad baa looga hadlay gardarada meelo badan bay Soomaalidu gardarada kaga hadleen haddii aan isweydiino dhahano qofka gardaran maxaa lagu sameyn oo caaqibadiisu waa maxay ikhtisaarna waxaan u malay waxa isla garanaynaa nin walba wuxuu dhihi lahaa waa laga jeebi gardarada nin alla ninki gardarra geysto laga jeebida waxaan u malayn af Soomaaliga dadku ay wada yaqaanaan ma aha laakiin jaabka waxa loo yaqaanaa hadal meeshii maxay ahayd kan marka geela ragaadka laga bixin waayo waa la qooqaara saasa meela aan xitaa loo baahnayn in la gooyaa markaas saasa lagu soo bixiyaa ragaadka waa la jeebi baa la dhahaa marka waa la jeebay hash intaad geysatay iyo in lagu daray ku geysan bahasha guul lagama helo marka gardarada arrin xun waay waxaan jecelahay marka inaan
soomaalida inteeda israaciyo inteenan xagga carabiga u gelin laba qiso baan jeclahay oo soomaalida dhaxdeeda hadda intii uun dawladda Soomaaliya ee hore dhexe ay burburtay dhacay in aan sheegan jeclahay oo gardarrada un ku saabsan qisada koobaad gardarradu inay adiga un dib kuugu soo noqon bay tusaale u tahay ta labaadna sida un way qisada koobaad waxay ahayd wiilashan dhalinyarada ah waxaa jiray Soomaaliya markay burburtay dhalinyaradii ilaan dugsi ma jiro waxbarashana ma jirto ilmihii qoryo intay qaateen bay wadooyinka istaageen dad in la boobo iyo isbaara in la dhigto umba aqligu noqday waxay keentay marka habeenkina in guryaha loo dhaco maalintina isbaarooyinka la joogo la qayilo akhlaaqdi ay fasaado aad loo xumaado mid iyagii kamida maalintii dambe hooyadii u yimid oo xoogaa yar caruurta ku beelato ku celceshata markaas wuxuu yiri xoogaa aan ku qayilaysi duqdi markaasay u diiday dhowr jeer buu ku soo noqday maalintii dambe u imaaday kooxdiisa wuxuu yiri war duqda xoogaa bay haysay kaalay inooga qaado caaw aanu derbigaan isku leelina santuuqi lacagta la gelinayna waa tilmaamay meesha uu yaalayna wuu sheegay way soo kaceen nimankii waxay soo galeen gurigi lacagti keen baa la yiraahdays duqdi waxay tiri aniga waxa ma hay niman tilmaan ku socday ahaayeen xaqi ka wareegayna santuuqa bay fujistaan way la qabsatay xabad ba madaxa looga dhuftay meesha way ku dhimatay waa la soo baxay isagoo banaanka taagan baa loo imaaday haye maxaa dhaco maxaad samayseen oo seed oga soo qaadeen buu duqdi santuuqa dawaad wadataan waan arkaay waxay yiraahdeen santuuqa bay nugula dhigto waan kari weynay haye saad yeeshan waan iskaga reebnaa leey hal baan madaxa kaga dhufanay markaasuu yuusau istaagay xoogaa maaragtay arinteedii qof bini aadam buu ahaa hooyadii in la dilana diyaar oo muusa ahayn xumaantii buu xoogaa ka gariiray jirkii baa dhaqaaqay markaasuu istaagay markaas waxaa le markii la arkay yaa isagana hal kala lagu dhuftay maxay ku soo noqotay arintii gardaradii ay ku soo laabatay isagay ku soo laabatay qisada koobaad midaas ay ahayd qisada labaad isla arrimaha un ka dhacday laba nin baa saaxiibo ahaa kolba aniga qisada iyada ah dadkii goob jooga ahaana way ii warameen jaraa'idkana aad baa loogu qoray baa leeyahay laba nin baa saaxiibo ahaa intaysan dawladii hore burburin afgooyana wuxuu ku lahaa nin kamida beera aad u fara badan oo qurux badan markii la qaxayay buu saaxiibkii beerihii ku wareejiyo wuxuu yiri beerahan iskana maal ina badbaadi qaxooti buu galay oo qax buu galo muddo dheer buu socday muddo kadib buu soo laabtay hadduu soo laabtay wuxuu is yiri bal ninkii saaxiibka ahaa iyo wuxuu hayaadu imaatay ninkii wuu imaaday aad buu soo dhaweeyay uu marti qaaday si fiican buu maaragtay u soo dhaweeyay markii la dhamaystay baa wuxuu yiri niyahow hadii anna xoogaa dhibaataan galay beerihiina waad haysay iyo wixii hanti ahaa maxaa ka nool beerta aad bay qurux badan tahay way joogtaa waxaan rabaa buu in aan tagno oo bal beerti fiirino adna muddaad haysay hadda aan kala qaybsano qaybna aan ku siiyo qaybna aniga ay aan lahaado masaasa ha waayahay waa la israacay beerihi baa la tagay beerihi markii la tagay ninkan waxaa la xumaatay beerta in la kala qaybiyo beerteena la dhax qaadahayo labadooda bas yihiin iyo bustoolad madaxa kaga tiriyay ninka halkiiba ku nafbax hanafbaxay iska muusta tagine ay qaylo afka ku dhuftay talla ayay saaxiibkay baa la dilayay kana la sameeyay meel walba uu orday uu hanjabay dadkii oo dhan buu orday yaa dilay waa la isku soo kacay waa la soo diday ninkii oo meyd ah yaa meesha laga qaaday qabri baa la qoday qabrigi markii la qoday oo ninkii qabriga qarkiisa la dhigay buu yiraahday buddiga intuu xagga istaagay hal qaada markii la yiri baa tab loo qaada la waay warba nala qabaa la yiri in kaarne wuu qabtay helelif buu yiri qabrigii baa la dhigay ninkii
isagana waxbuu ka hayaa nimankii kale waa soo baxeen isagii baa ka bixi waayay wax walba intii lagu sameeyay baa laga qaadi waayay meesha maqribkii baa galay waxaa la yidhi war bal aan soo tukanay waxan waa mucjize wax caadi aba ma aha aan iska soo tukanay ina wadiya salaadii baa la aaday salaada marka laga soo laabtaa waxaa loo imaaday labadii nin oo meyd ah oo kii hore meydka uu koreeyo saas ku korsaaran yihiin arrinta xagee ka imaatay waa dulmigii uu geystay kolba qisada iyada ah waa qiso iyadana dhacday oo geyiga Soomaalida ka dhacday qisaska aan iska dhameeye laba qiso oo carabta ka dhacday baan ku dari qisa waxa weeyaan Sacuudiga ka dhacday kolba nin dhakhtar ka sheekeeyay ani waan dhageystay wuxuu leeyahay ninkaas laba nin baa daris ahayd iyaga oo daris aba midkii miskiin ahaa oo ag deganaabo mid kale dhul ku qabsaday dhulkii isaga ahaa markuu ku qabsaday yuu ninkan kale u soo maqraati furay markii la isqabsado wuxuu yidhi dhulkan ninkana iskale mana lah waa zuuran ninkii dhulkiisii isagoo taagan baa la qaatay waa lagu kala tagay maalintii dambe isbitaalka la dhigay ninkii waa xanuunsaday haddii la baaray waxaa la arkay tuubooyinkii qalbiga dhiigga siinayay mid ka mid ahoo fashil ku jiro tii iyada ahayd haddii la hagaajiyay haddana waa fashilanta waa lagu celiyay way fashilanta xoogaa markii la joogay tii kala fashilanta xoogaa markii la joogay keli baa fashilanta waa la yaabay ninkii wuxuu ku jiray xaalad miyir daboola markuu soo miyirsaday yoo ninkii la hadlay dhakhtarka haa wuxuu yidhi waxaad qaadataa lambarkaas ninka hebel la yiraahdo walaalo waxaad tiraahdaa ilaa isoo gaaro tacbaan baan ahay waa ninkii uu isgartay inuu ku jiro xaaladii inuu ku jiro ninkii isaga ahaabu wuxuu yidhi ninka hebel la yiraahdo ma taqaanaa waan aqaanaa ninkaasoo isbitaal ku jiro tacbaan aba jira walaalo uu ka codsanayaa imow wuxuu yidhi ninkaasoo ma aha 3 sanaan aniga caruurtayda ilaahay u baryeynay inuu ilaahay uusan dilin ilaa xubnihiisa mid ay u fashilanto oo u baaba'o saa uu ku dhinto sidii buu ku dhintay qisada labaad gabadh yar oo jaariyad aba reer la joogtay qisada kale maxamed xasaan ninka la yiraahdo Misrigan ka dhageystay yadan gabadh yar baa oo jaariyad ah oo 10 jir aba reer la joogtay reerkooday xoogaa yar oo biil ah siin jirtay shilimada ay meesha ka hesho laakiin reerka gabadha waa cadaabi jireen odayga reer kala gabadha dili jiray oo cadaabi jiray iyadana aad inay ugu khidmayso oo ay ka soo baxdo hawsheeda isku daysay say u socotay maalintii dambe way indhabeesh dilkii iyo dacdaradii iyo dhibaatadii daraadeed bay la indhabeeshay dam arinta markay ku dhacday way arkeen inay saanfacaynin bay iska direen waa lagu kala tagay bahasha marmarka qaar dulmigu adiga laftaada waxa laga yaabaa caruurtaada inuu galo maalintii dambe waxa dhacay wiilkiisi baa gabadh guursaday gabadhi markii loo aroosay ayaa gabadhi ay uuraysatay wiil bay dhashay hadday wiilka dhashay indhaba looma abuurinba waa dam arinta la yaab bay noqotay dhakhtar walbay u tageen gabadhi baa la baaray wax walba la sameeyay waxa la yiri marka maadaama oo labadan ruux ay kala fogaayeen qaraababa ahayn ilmaha dambe insha Allah waxay noqon doonaan aamin mar labaad bay hadana gabadhi waxay dhashay gabadhi oo indha qabtay dhashay waa la baaray waa caadi way fiicanta xoogaa 7 bilood markii joogtay gabadhi dam odaygii reerka lahaa xaalad nafsi ah ku kacdo uu dhacay istaagu ka dhacay wiilkiina istaagu ka dhacay
reerkii oo kadeedan bay habartii waxay xasuusatay gabadhay cadaabi jireen gabadhi bay doonta gabadhi bay tiri kaalay nacafi waa goorma waa mar ay midi uusku tagtay arrimahaas waa qisooyin dulmigu uu leeyahay aanu imaanno dulmi maxaa la dhahaa waa sheegnaan u maray gardarro laakiin af carabiga waxaa la yidhi sida aan ka soo qaaday kitaabka la yidhaahdo mucjam maqaayis luqa wuxuu leeyahay addaa'u wallaamu walmiimu aslaani saxiixaani axaduhumaa khilaafu aldiyaa'i wannuur waalaaakharu wadcu shayi hayra mawdicihi tacadiyan sidaasuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa xuruufta iyaga laba asal bay ku imaadaan oo saxiixa asalka koobaad wuxuu ka duwan yahay waxa la yidhaahdo iftiinka iyo nuurka yuu did u yahay asalka labaadna waxaa weeyaan shayga oo la dhigo meeshuun ku habboonayn shay walba inuu meeshuu munaasabka ku yahay la dhigaa saxa laakiin shayga oo la dhigo meel uusan ku habboonayn midka koobaad waxaa weeyaan الظلمة والجمع ظلمات والظلام انتابا والغو جمعيا وحاوي وقد أظلم المكان إظلاما ماشي با مقديودي هدو هذا اللايت كان إناقا تغو دم أي دهو ورده ومقدي ومشكلة يعني مرر كقارو حلقاها وقفك واحد ملفق إنو كراديو nibankii Soomaalida ahaa oo maxay ahayd odayaashii ribaadiyaha waxaan ku xastaa qisayar oo yaani ka yar baxsan nidaamkan yaa raba inaan soo yar arooriyo yaani mararka qaar waxyaabo badiihi jira waayadii qaxootiga hore ee Soomaalida abaaraha intay ku soo dhaceen luuq iyo dhinacaas u jiray abaaraha lagu jiray yaa nin kamid ah rag odayaasha ahaa waxba garanaynin baa leeyahay saaka imtixaan baa jira aqoonna male baadiyo ku weynaaday waxaa saaka waxaa jira imtixaano tartan waxaa loo galayaa xiriyaha qaxiradan qaxootiga ruux madax ka noqon lahaa markaas isku soo rashaxay imtixaanka waxna ma yaqaan lajnada imtixaanka qaadaysu u imaaday markuu soo galaa la yiri shahaadadeed wada shahaada ma wato yiri maxaa taqaanaa baa la yiri waayo arag baan ahay ma adaa waayo arag ahaa mushkila maxaa la dhahaa baa la yiri mushkila miyaa ahaa qolkan aan ku jirno inugu xidhmo wax inaga furo aan weyna weeyaan والله يا نينك شقد سيدي بو كهلay shaqadi ya faraha laga saaray sidii uu ku qaatay shaqada marka waxa weeye mararka qaar yaani wax meel fog ka dooninba yaani dhulmigu waxa weeye waa mugdi haduu wajigaadu mugdi noqdo oo qalbigaadu mugdi noqdo oo kelimadaadu mugdi noqoto oo amalkaadu mugdi noqdo oo wax walba mugdi noqdo madow ku dar un aad noqoto dhulmiga la sheegi kaawi meesha uu ku dhaxalsiinana kaawi gardarada lagu sheegayo ee lagu leeyahay lagama guuleysto ninkeedana way gawartaa way gowracdaa lagu leeyahay waxa weeye meesha un bay ku istaajinaysaa muhiimadeedu waa inta iyada way dhulmigu waa kaas marka sida isaga way asalka koobaad asalka labaad ee dhulmiga lagu sheego waxa weeyaan waa shay u eg waman shaabaha abaahu fama dhalam عرفت maxay dhahan ninka aabihi u ekaada waxba ma dhulminin dhulmigu saddex qaybood buu noqdaa qofku inuu naftiisa dhulmiyo inuu ilaahi dhulmi ka galo inuu adoomaha dhulmiyo saddexda arimood buu dhulmigu u qaybsamaa naftaada inaad dhulmido inma baghyukum ala anfusikum mataa' alhayati ad-dunya bu ilaahi subhanahu wa ta'ala wa ina naftaada dhulmido adun budib kugu soo noqon waxa dhan ilaahi ina dhulmido inna shirka la dhulmun adhim bu ilaahi shirkiga iyo gaalnimadu waa dhulmi aad u weyn oo meeshii loogu talagalay meelaan ahayn cibaadadii baad dhigtay waxaan ilaahay ahayn baad cibaadasiis waa dhulmi marka aad u weyn oo gashay weey arinta saddexaadna waa in aad adoomaha dhulmido ilaahay إلهي سبحانه وتعالى وحيري حديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالم يعني نفت إذا ظلم وان كحرمي نحذيننا وحان كدغي ظلمك مد حرام يعني للظلمين ظلمك هلا اسك إلاليو
ninkii wax dulmiya markay ugu horeeyay ibliis buu ahaa bi'sa lidh-dhaalimiina badalan bu ilaahay subhanahu wa ta'ala كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يعني ننكا إسجاء ظالمين تبدل كأي قاتل كاس ظالمين تكاس أو ماضي عذاب بين كوجبنا يا وليقول إبليس محو الظلم كوكاني حسد بالله ماضي إلهي أمر كسود ديدي نبي الله آدم أيو حقري مركز عداوة بالله ظالمك أجوه ريبوها عربتي سمحي نقط نار إن لجوه حكومة ملائكتنا لقى صار وليجينا النار تمارك تحكم النار عربتي سهل كاسو إبليس كدرارة وحاكله أتقرن إنسان الظلم كقول رقمي ليه كرا وحي ظلميان إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين نبي الله يوسف هلا الدليدهن هلا قد تخلصوا قولك هلا دقا ننكاس قبي سبا هلا صاروا هاي محان هلينا مركا قدام بيسا وحان هلينا ها آبهن إن ويلك نقاتش علانين ووجهيسو خالص إنه النقضة قال في عنا النقض وارن عجيبة لكن محا قدام بيي إياغو أو قحة أو رفاتسان إنه يسوهوس فريستان يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفر لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين وحن نقول صدق يسي قادة إلهي وحو أبال مرياكوة وحصدق يسته تانا نبي الله يوسف بيساقنا أرنتي ساهي وأرنتا محيه اللبات أرنتا سدحات فرعون واتقران إيسان فرعون محو سمي نبي الله موسى انتو قاضي انتي لقاضا بدل لغو توري المهي ريبني إسرائيل ويل كده شرطن بان لقورعها محو يلها يظل لكن محاب عضي فنبذناه بالعراء وحاويان فنبذناه هو وجنو وحاويان فنبذناه في اليم إلهي وحو يلي وحان كتورني بضا يعني السيدي قرور حيرا انتي لقاضي بدل لغو تورا كلا فضيت كسي إلهي وفض ضاي فيري منك فرعون هايد أجيدين واحد أركت عيدا هيست واحد أركت فانة هي واحد أركت حمان سمين هي ما حاطط عي انتي لك عضي وبعاير بدل القطورة عربت سمحين نقطة فرعون أو عيدا مدي أو أودي أو وحو كفانة هي أو وحو لها وقالوا كلتك قداش يسرب بني إسرائيل بعد حلي حوله يسيو حيصورن يقاقات ظلمي بمارك أرنتها إيضا أي أكسبي ظلمي إلهي وحيري إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إلهي ضدك ما الظلميه لكن إيجا نفتوضا إس ظلميه ظلمي قال لقاها الله يوا عام قال يا إسلام تونا الله ما أقل قفنا إلا ظلميه ولذلك ابن تيمية وحيري دولة ده مع العدل يضع قال أو كافرة أبي شقين كرتا يسعون كرتا لكن هذانا مع الإسلام يضع ظالمات أما شقين كرتا ويدعي نظام جود بجرور وضع الصعوبة هذا قفك الظلم إسكا إلاليه عيار ما النبي عليه الصلاة والسلام معاد مركو دري محوجري اتقي دعوة المظلوم ننك الظلميي بريدي سإسكا إلالي فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إيضا إيا إلهي لحظاظا وحجاب أهو كجرا مالها أرنكا إسكا إلالي وإسكا جر وأرن مركا أذقوي قفكو مركو واحد ظلمي وحمودي إنو بالقاسوة وحمودي إنو رقن نمهلي وحمودي إن وحي هاي
كبر بوسنك لا تاجي لكن محا ما ركتي أقرصان وحصابحي إنه ضعيف يهي إنه حقيران يهي إنه نفتي سد اللي إنه إساقة ودب أقصى نقول يا وحن وصميني Soomaalidu waxay dhahaan markay la yaabaan ruuxay arkaan wax sameynay isku fid bay dhahaan isku fid ma taqaanaan yaani isku fid waxa weey ruux baa wuxuu la balaayu sheeganaya balaayu sheegi kanu sheegi markaas le Allah kugu gadiyo adigu un isku halaag isku fid bay dhahaan Soomaalidu ribaadiya kullaba saasay ma aragtay inta badan yey ma aragtay dhahaan ruux markay ka yaabaan waxyaabaha uu sameynay isku fid bay dhahaan marka dulmigu waa isku fid oo xaqiiqo ah adiga umbu dib kugu soo noqon adiga umbu ku kala saari irib oo uu kala googoyn dulmigu marka arrin fudud ma aha waa maxay inna allaha la yadlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadlimun ilaahi subhanahu wa ta'ala saasu yiri inna allaha la yadlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إلهي وحوي أنت إن درعسو قدرك يا وحبا إلهي ما ظلمي درعسو قرآن جدا قيب كمدا آذو يريرو تا إيضا أوحلق إلهي قفك كما ظلمي وحاويان هدي أي وناك تهين آد بقول بلابي وآد بكوين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إلهي سبحانه وتعالى أساسه قيامها مركا لقارو هداد وح إنكري لهايد أفك هذه باب اللي مسيمبا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما إنكري كرت وقد هذه بقى اسكا وضعها الله يسي ما حضو هذا شان قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إلهي وحوى البكهد لي يا نجهد لنا إلهي أرنفض معها مرة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلهي وحول أنكم ما ننظر منين لكن إياك النفط هذا أي ظلمين هيين إياك النفط هذا يظلمين هيين طيب ومركا ظلمك مركا وحاويان وأهل آد حن وحاوي حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر لقورنا يحجري إن الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمك وظلمات ما لنت قيامه حديث كالباني باكو صحيحي الجامع الصغير ترمذي ابن ماجه ويساس صاريا marka waxa weeyaan dulmigu waxa weeye waa dhulumaat waa mugdiyaal maalinta qiyaamo qofka mu'minka marka uu nuurkiisa ku socdo naqtabis waxa weeyaan unduruna naqtabis min nuurikum saasay leeyihiin munaafiqiintu xogaa yaroon iftiina la siin markay dhaqaaqaan baa laga damin markaasay mu'miniinta dhahayaan warbal na soo fiiriya nuurkiina ku soconne markaas aan dhih ordan noqdo nuur soo raadsada bal dhih waxaan naga soo daba doonteen إلا أن إسكو جهائي إسكو لامبا أو مصعناه الدون كوية وحا وحلقو قاطو قفك بني آدم كاسيدي سابا وكشقية إلا قصعده قفك للظلميو مسيح لهبينك هادو قفك ققر درابا صومالي دو محاي دهان لا يالا محل مامو يالا سووها الماما قفك وحيالا وظلمي جيستي وإسكا إلوبي لكن قفك لا يالا ما إلوبي لا يالا وإلوبه لكن يالا وإلوبه لكن لا يالا محل مامو هبين بركي مركا أذيق إلهي سبحانه وتعالى وقعنتي سفذني أوليه هل من سائل فأعطيه مجرى قف وحي ويدي سنة يأنسيه يسوجي ذا مركاسو قعمها تاقي مركاسا وحوليه إلهي وهب الباء الظلميي يذي إلهي نعدنا أمر حاجة أذوق مركا محاض ملايين يسا واد اسكهرو دا وحال الظلم قال لي وحا قروح بدن وحاوي إذا ظالم استحسن الظلم مذهبا
ولج عفوا في قبيح اكتسابه فكله إلى ريب الزمان فإنه ستبدي له ما لم يكن في حسابه فكم رأينا ظالما متجبرا يرى النجم تهيبا تحت ظل ركابه فلما تمادى واستطال بظلمه أناخت صروف الحادثات ببابه وعوقب بالظلم الذي كان يختفي وصب عليه الله صوت عذابه. وفيرسو يعني معي هيد شعر عربي أول وحيري قفك ظالم كأمرك الظلم جيسا مذهب أهان وأقرح صده oo madax adayga iyo xumaanta shaqadeeda aad u sii galo iskaga tala saaraba leey zamaanka ku soo wareegi doono ku imaan doone zamaanka ayaa ku imaan doono ku soo wareegi doone iskaga waxa leeydi iska daa faraha ka qaad baa leey waxaana maaragtay u dhaahiri doona wax uu san filanaynin وعسن كحساب تمين بو أركي دونا ماقا أيان أرقنا من ظالم أهو كبيرسن وآد اسكولوينا أو محيا هيد وأركي هيد يحدوه كلا إني كيه بيسان أيان أو إساقو أو انقلقلان نلك الله أركي معنا الآن ماقا ماركتي لقو عقابي ظلم جيسا وماركتي وذي الله إلهي وكشوي wax alla wixii cadaab ahaa oo dhan noocyadiisa lagu shubay jeeda cadaab ma qalgu garaacay xumaana waxa ugu filan waqad khaba man hamala dhulma wa hada ilahi hada bini aadam ma waqad khaba man hamala dhulma maadum malayn magaalada la yiraahdo Khaybar ee Madiina ku agtaalo ومقالو آد ماركتي رنتي تمر معانا أي كبحدة آدنا الله محيه حوالي بدن وقصوا إكران لكن هذا نينا مدقنو واعد لا وأن يسجق جوري وح مقالو كجر تمالي جوري هو يهوانا يعني هدين لسؤاله اللي محاطوية عشان لفظ النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر يعني وقتقنا بها لفظ كلية لو جوري مقالو maxaad u malayn hadalkan ilaahay uu leeyahay waqad khaba man hamala dhulma qad waxay kamid tahay adawaatu tawkiid luqa arabiya wax lagu adkeeyo hadalka aad loogu adkeeyo waxa dab ah in uu hoogay ninkii dhulma xambaaray intaas ugu filanba yani waxana wadno dhan hadaan iska dayno inta kaliya la sheegay yakfi maxay hadalka ilaahay hadal aad macna ballaaran وقد خاب من حمل ظلما وحلا شيغو دن waxanu ku dhici waligaaba wadwad intaas isku foqsanaysa waqad khaba waxa xaqiiqa inuu hoogay man hamala dhulma qofki xambaara inuu hoogay taa iyada aba xaqiiqa taa iyada marka arin ajiib aw waa in maaragtay qofku uu aad iyo aad iskaga ilaaliyo dhulmiga isaga waxaan malaynaya waqtiga aad igu gaabano barnaamijkayga aan maaragtay waxana soo qorqoray kama wada gaarsiin karo waxaan jecelahay in aan ku soo koobo oo ku soo gabagabeeyo maxay ahayd gabayaal yar oo waxay dhaheen waxa la yiri la tadlimanna idha ma kunta muqtadiran فالظلم آخره يأتيك بالندم نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وفيرسو لا تظلمن هظلمن أو هظلمن وتوكيد نون تأيضا نيهو هذا الكاف صومالي مركز لقوم معنين يوال لقول العليا بينهان والله النحاضة هذا دركت التوكيد كوحي كتلي جنتها هيال أو هيال لما تشرت كعلي سي إذا ما كنت مقتدرا مركز أود أولى ضهاي هكون دقاقن ظلمك هكون دقاقن هظلمين ضدك فالظلم آخره يأتيك بالندم ظلمك وقدام بيستا شليت أمبكوكيني كل بك ما بدبادس معايا لي نامت عيونك والمظلوم منتبه أدو وادسكسي حتى
mil'a jufuunikaad seexatay indhahaada muggood baad huruday laakiin ninkii madluumka ahaa away mutaqallib saas u gadgadoomayaa calaalyoobay xalay maxay calowday laabtaydu buu leeyahay saas u gadgadoomayaa meel uu maaragtay hurdo ma qabanayo yadcuu calayka adunbuuna ku habaarayaa wa caynullaahi lam tanami ishi ilaahayna ma seexanin ilaahay waa maqlayaa ninkaas waa maqlayaa taahiisuu maqlayaa baryadiisuu maqlayaa gacantaa uu taagay buu maqlayaa alla barigaasuu ku jiraa is-ilaali marka nin walowba waxaa weeyaan dulmigaas haddaad ka joogi weydo aday kuu taallaa waxaa la yidhi maxay ahayd xoolaha oo kale haddaan hadda ku miaalino geela waxaa jira wax la yidhahdaa laanhaadeed laanhaadeedda iyadaa hashu godka ma aragto ay ku dhacaysa ee waxay aragtaa laanta caleentee u muuqata intay laanta sii laacaysay ka duulaysaa meesha adigana intay arrintan kuu muuqato hebel wixiisa ka qaado hebel cay hebel maxay ahayd caburi hebel gaabi intaad leedahay yaad haadaantaa ka dhacaysaa يعني ما أجد خلاص يا إسكاويدين مرك إنا لو عاركين بابا لقيا وسهاش هذا يساء ماشى أوجد بعضه إن التسوداء لقيا بالله ويا دم بالله أوجد الله روح شيء بله هيداو نما يهو هالشيء لما هيه هدفته يا مو يجوده هقد له هذان قرصون كوها كتاب موي يعني هذان قرصون يهقد له إنا يكدوا شيء هالشيء لما أوجد هذه قلفت الكادورة تا يضع بعد ما ركت كسو جنت ما أجد ما إنا هذان كان عدونت ما أجد إن ما ركت وحن لقى جيب دون ما أجد حالة دكوجو إيمان دونتا ما أجد وحن عرورت هذا إنا راعي دونتو ما أجد رزقك إن لجوجو عريري دونه ما أجد مرك هذا ما تو ملك إنه كان راح يصندون ملك يا أضام ماذا يوحول بقى كان راح يصندون مرك هذا ما هذا ظالمت لكن ما أنت توبض فرنت هاي وقف بهاي إن لها التوبة النقطة هذا بالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسن خليل إلهي سبحانه وتعالى وحكى رجينا إن ميزانك حسرات أوصاره إنك إلهي سبحانه وتعالى كو أنفعه وعد قاسقاتها الله ينغيره وحكوا برجونا يا الله إن شاء الله تعالى روحي سؤال قبا موضوعنا قصة إن شاء الله تعالى علماء ويسوي دين كران قرآن بين كسوي دين إن شاء الله تعالى ويسوق رهيان ويسوق بين هيان سينوقف فيا إن شاء الله تعالى عندنا وحكوا رجال يا شيخنا الشيخ مستعيد وينصف فاهمتنا إن شاء الله تعالى روح الله صوت شيء ظالم كيسجها ما شاء وقدم بيتنا إن شاء الله تعالى آخر والصلاة والسلام على حبيبه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله منا ومنكم أجمعين الله وحن وديسنا بفضله وكرمه وجوده توبة إنه نجا أقبله شاقة وحو نجوا علينا إنه نجا أقبله أنت كجدال إذا كل وايسكم موضوع وينقص قرين شاقي أرجع موضوع على كل إنك أهري أمر مرينا يا إنه حقيس السن ويود تداخل ما إنك الحديدين وقت كان واحد بده وحير إنه كهري waxay ahayd kale qaybta yar la igu soo qoray maaru adh-dhalimin dadka dhaalimiintu intay ku dambaynayaan aaqibadooduna maxay tahay hada sheekha waa ka hadlayo marba wuxuu keenayba amthilo keenay waxay oo dad badan dadka dulmiyeen ay dhamaadeen qaar baabeen buu sheegay marka waxaad moodaa wax xarayba inaan inta ka daba intaga iska sii adkeeyo mooyaane meel si banaan baan waxa kale ma garanayo لكن أنا سير أتكيا بل بين قنيسة أو بل صور حقائر عن مدة كوامنا جهوان عن قدرة إن كبهن كرو والله ينص الشيء إلى هنا هن بدباديو هن لنا يا دول من هذا لجهل قف أن كجرين ويريه أما نفتي سهاد دولميو أما الله هاد دولميو أما غير كهلا دولميو ولو كلا بدنيه مويا soomaaliduna waxay dhahaan maroodu takarta saaran ma arko laakiin ta kale arkaa maama kale waxay dhahaan nin walba meeshu ah reerkoodu moodaa dad badan oo dulmi ku jira
oo inaga mid oo laga yaabo aniga inaan ka mid ah laga yaabo inuusan is ogeyn laakiin dadka kale laga yaabo inay arkaan way dhici kartaa haddaynu mawduuca qaybta dambe aan sii adkeeyo waxaa qur-aanka kariimka inoo caddaynayaa qofka daalimka ah waa la tacriifiyey ilaahay inuusan jeclayn mar hadduusan ilaahay jeclayn dee maxaa u yaallaba qof ilaahay nacay uusan jeclayn wax meesha u yaallaba ma wale saa darteed ba alla qur-aankiisa kariimka ah wuxuu ku leeyahay wallaahu laa yuxibu aldaalimiin alla daalimiinta iyo inta wax dulmisa ma jecla allana hadduu ku naco dee meeshu kugeen waa taqaanaa oo wax kuu yaalla ma ayne aayad kale alla wuxuu ku leeyahay innahu laa yuflixu aldaalimuun xaaladiyo shaanigu waxay tahay dadka dulmiga gala ama alla ka galo shirki la yimaada ama naftiisaba ka galo macsiyo la yimaada ama dadweynaha ka galo maalkooda iyo xoolahooda iyo ciridkooda iyo naftooda ka gala ma liibaanayo alla odhanaya wax guulow gaadhayana ma leh khasira addunya waalaakhira taasna waxay ku tusinaysaa cirib dambeedka iyo sheekhu intuu yidhi aan sii taakiidinayno aayad kale alla qur-aankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay fawaylun liladiina dalamuu min cadaabi yowmin aliim waylun waxay yidhaahdaan halaag ama waa qayb jahannamo ka mid a waali ku yaalla waxaa iskale dadka dulmiga la yimid oo ka ahaaday cadaab dhacaya maalin aad khataro ah cadaabkaas aliim ah oo mu'lim oo waxguba allaha qur-aankiisa kariimka wuxuu ku yidhi isagoo ma'aalkooda iyo caaqibadooda ka warramaya daalimiinta uu sheekhu ka hadlay wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalibin yanqalibuun way ogaan doonaan siin baa la geliyey oo bilmustaqbala dadka dulmiga la yimid ee dadka dulmiya ama alla ha dulmiyeen ama naftooda ama dad kale waxa ku dhici doona ama gadoonkooda ayu gadoomin ama noqoshada meesha u noqon doonaan iyo meesha geli doonaan waa tahdiid iyo goodi baa la dhahaa way ogaan doonaan waa adoo yidhi oo kale walilaahi almasalu aclaa waad ogaan doontaa sacaa foolanaya dadka ilaa annagu baadiya arrin ma og tahay arrin baan iska soo raaci jiray iyo geel loodan waa laga yaaba marnaa iska raacno oo soomaalida asalkeeda halbawaadi bay iska taqaanaa amtaladoodan in baadiyaha loo badiyo sida sheekhu ugu badiyey waxaan u malaynayaa daruuradaaba keenaysaba oo qof aan geel soo raac ama loo soo raac waba yar yahayba waxaana xigmad badan baa ku jirto geel hadduusan soo raacay gawayadanba ma hayeenba waxoogaa geel in la soo raaco yaraantii oo iska fiicanta caaniisa in laga dhargo kaadidiisa habeentiisa lagu daro si dadku gashin u yeeshaan maskaxad u weynaato marka sidaa darteed ayaa waxay ka dhigan tahay war saca foolanaya haddaad lumiso waad ogaan doontaa talaabadaan kaa qaaday iyo feerka laadkaan kugu dhufto walilaahi almasalu aclaa alla wuxuu leeyahay way ogaan doonaan dadka wax dulminaya gadoonka ay noqdaan oo aniga ii yimaadaan oo loo celiyo la ii soo celiyo bal meesha ku dambeeyaan suurat alancaam allaha tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay isagoo ma'aalkooda ka hadlaya iyo caaqibadooda dadka dulmiga la yimid alaa la'natullaahi cala aldaalimiin alaa tanabbaha wa alamu ogaada adawaatu tanbiih war ogaada lacnadda ilaahay dadka dulmiga la yimaada ha ku dhacdo soomaad korkoodana ha ahaato lacnadda ilaahay ducaa laga dhigo ama khabarba laga dhigo waa dadka wax dulmiya lacnadda ilaahay baa ku dhacda lacnaddu maxay tahay raxmaddii ilaahay oo kaa fogaato wey mar haddii raxmadda ilaahay kaa fogaatana wax ku yaalla male raxmadda ilahay ba hadday kaa cararto wax ku yaalla male aayad kale alla wuxuu ku leeyahay fabucdan lilqowmi aldaalimiin fogaansho ayaa u sugnaatay qoom daalimiin ah way ka fogaadaan raxmadda ilaahay waa arrimaha cibaarada alla adeegsanaya oo ujeedaan dulmiga uu sheekhu tacriifiye oo ka soo hadlay sidaa darteed ayaa ummadihii la halaagay oo dhan dulmi bay galeen qoomkooday ka galeen dadkay ku amartaaglaayeen ambiyadii loo diray ku tunteen diintoodii bay hor istaageen xuquuqdoodii bay cuneen laakiin waxay ku dambeeyeen haddaan hal aayad ka soo qabsanno alla tacaala wuxuu yidhi aadda aqalkeeda fa kullan akhadnaa bidenbih mid kasta oo dabaabirada ama dalamada ama jawarada dadka dulmiga la yimaada ama jawrkii cadaalad la'aanta ee ambiyadii iyo dadkii iyo ra'yaddii ku xadgudbay dhammaantood akhadnaa bidenbihi dembigiisa qadarkiisaan u qabannay
فمنهم وحكمنا من أرسلنا عليه حاصبا من أن نؤدري دغحيو أما الضبيل سي علماء ku fasirayaan labadaba way ku fasireen xaasibka inta badan dhagaxa la yare quruuxa loo adeegsadaa laakiin culimada qaar baa ku fasirsan qoom aad oo nabi ilaahi loo diray oo dabaysha sarsarka quraan ka waramay xoog badan lagu halaagay ayay mar waxay ku fasiraan ibnu kathir ku soo guurinayo in xaasibada lafteeda ay tahay loo adeegsan karo waxa kale oo iyadana lagu fasiraa qoom luut oo iyagana la yimid caalamku wuxuu la imanin oo ragga inuu maartay oo isguursado waxana rag iskida haweenka kale raggi oo rag kala aado waa sida gaalada iyo dadka bedelana xoolaha ka daran ay freedom ka dhigeen leeyin everybody is free raggu raga guursada haweenkuna haweenha guursadeen soo ma aragtay oo quraankuna uu ka waramayo dambiyada ugu xuna walada iyaga horay kor baa loo qaaday hawada iyo samada markii la geeyay dhagaxyaal calaamadsan oo musawwada ah ayaa hadana lagu soo diray oo lagu salaaday sidaas loo halaag irka la geeyay fajaalna aaliha saafilaha wa amdarna alayhim madara musaa madar mundarin ila qura ugu roobenay laga ibaaro laga dhigay sidaas lagu halaagay iyadana qoom luudna wala dhaha wa min man aqadadu sayha wa iribti dadka dulmiga aqooda waxa kamida mid ay qayladii qabatay jibriil ku qayliyay waxay leeyihiin iyadana mufassiriintu reer samuudna way tahay oo qayladaas ku dhacday markaas ay wada sooxay oo markay haashi ku xad gudbeen ba saddex maalmood loo sugay soo quraan ka waramay waxaan ilaaleenaa waqtiga ay maartay soo reebeen baad marana inuu yariyo waa reer samuud oo nabi ilaahi saalix loo diray waa nabi ilaahi shucayb qoladii loo dirayna iyadana waa lagu fasiraa waxa way saaxadaas ku wada dhacday Allah ta'ala wuxuu yoominuu man khasafna bil ard dadka dulmiga leeyahay waxa kamida qaar aan dhulka la gooynay dhulkii oo laga gooyay isagoo taagan ayaa dhulkii la gooyay wuxuu yahay waa qaaruun iyo qaybkii faqasafna bihi wa bidar al ard dhulkii oo la tarayba isagoo aragoonay ziinadiisa umuriisa oo socda oo kala gees dhawraya ayaa dhulka waa kii la taray quraanka uu ka waramayo suuratu qasas iyo qaybkeed ومن وحكمنا ذاتك الظلم الليمي الظالمين من أغرقنا قف أن بيكو هلاقنا كمان شيني وفرعون قوم نوحنا يغن بيا لغو هلاقي دوات قرن زمان من الوقتين قوم نوح قوم فرعون غير فرعون ونبي الله موسى الله درينا يغن دوات كدوغن بدي لغو هلاقي ودمان بيها أيا لغو هلاقي وظلم الليمي الله تعالى وهو وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أرنتاسو سجرة يقول هذا واحد ظلمنا هذا الله من نفسه سكحرمه وما الله بظلام للعبيد وما الله والله يريد ظلما للعالمين هلا محمد ظلم يوم وأنا تأتي الشيخ أكور رمي ومرها صوت المركب وحين قنيسها ظلمك عقبديس هذا من أما صور الظلم هذه المثال أما الصور رفع صورة الظلمك aynu wax yar ka inaga ilaalinayna waqtiga aynu shaaro dulmigu alwaan kasiir leeyahay dulmiga waxa kamid ah dadkii oo laga manciyo xuquuqdoodii loo diido xaqi oo qofkan u lahaa oo ka hor istaagta min dulmi way مثلا مدح باطاي qof muslimna waa tahay raaciyadu xaq bay kugu leeyihiin danahooda inaad ilaaliso masaalixdooda inaad ilaaliso waxyaalaha bulshada u baahanta inaad ilaaliso مثلا biyaha kamida jidadka kamida waxyaalaha ay u baahan yihiin baa kamida haday abaar ku dhac in loo gurmadaa kamida haday biyo ku fakada in laga xidhaa kamida wixii baad xuquuqdii ay kugu lahaayeen baad u diiday oo ka hor istaagtay ama aad ku xadgudubtay taasuna waxay noqonaysaa waa min suwari dulmi sidoo kale dulmiga waxay leeyihiin suwartiisa midka ugu xunu waa albagyu fi al-ard bighayri al-haqq wa arladii aad ku xadgudubto oo ku amar taagnayn wala tufsidu fi al-ard ba'da islaahiha arladii aad fasaadiso dulmi ku fasaadiso dadka dhulkooda dhacdo dadka xoolahooda dhacdo dadka waxay xaq u lahaayeen aad qaadato oo waxa weeye aad fasaadiso ama aad macsiyo ku fasaadiso iyo zino iyo shirki iyo qabyaalad iyo xaasidnimo iyo been iyo isku dir iyo waxa la baahnayn marka iyadana waa mid ugu daraysa bacda shirki oo dulmiga kamid ah mar hore sheekhu ka soo hadlay waa baqi oo lagu xad gudbo waana mid xadiiska nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka hadlay nabi ilaahi muhammad
أورنا يما أجر الشيء ما من شيء ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة البغي وقضية الرحم وحنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجرو ذنب لا قالوا أو كأوليس أما وقالوا إن لو أسود الدجي قفك عقوبة الدنك iyadoo ay la qabo waxa loo kaydinaya aakhirana ay gadaal tiraan maxay tahay waa dulmiga iyo baqiga oo gardarrada ah sameer iyo qaraabada la gooyo hadiiska bukhari waa ka garanaysaano nabigu ilaahay sallallahu alayhi wasallam yadkhulu janna al-ghadi qaraabo goysku jannada ma uu galo suwarta marka waxa kamid ah al-istidaalatu ala al-khalqi dadkii baad gardarraysani limaada waad ka hanti badan tahay boosaska ilaahayeen baad ku faliisay alaaba ka qaadani dhulka ilaahayeen baad aniga lagu soo wareejiyo waxoodii baad qaadani ilaa ninka waxa way aad xooganay meeshu doonku ahayn aadaw waad ku diri ganacsi waad ku soo xoolo warkan la khaarijana lacag inseeni marka waxa weeyaan istidaala gardarro xaafadii waad ka dulmeen waxa war xaafada waxa way inta booska qaybtan soo kacanaale war malihid ma aniga ale بس ما أنت تما وقع قولي العقب بحنا يقولون إنك كيف يسوي ماشي على قبر بريو هو ماشي غير على قبره واستدارة وقدرة وأنا تنبي حديث كساحة كسران من ظلم قيد الشبري هل تاك وحلق ومن الأرض يقف كالظلمية ضوقه الله قارته وحرسها 7 أرضين تضبط أرض اللي كنت اللي قليني أو لسي قلقلاني يا أو لو عذاب يا لو حقاوة يا خلقك أمرك لا ظلميو وأمر عجيب دين تودا لقى ظلميو لو دين لقى هرستاكو ما لا قاركود وحالك من أنا يا دين تودا دتكو إنا كون أقمان دين تودا إنا ظاهر سلام ضد المسلمين شغلنا يا وحي ودي يا مساجد ده ودتك قار لقى من أيا حجاب كما لقى من أيا ما لا قاركود صلاة أذان كان لقى من أيا أما ضد قال أذان أما هو مقع مسلم شغلنا يا هنقطه sidoo kale naftoodii baa qofkii la dulminaya waa la iska dilaya maalkiisa la dhacaya gurihiisa la dhacaya xaqiisa la qaadanaya waa naftiisa baa la dilaya eridkiisa ma laga dhacaya waa la xamanaya hilibkiisa la cunaya umuraha soo iyadana waa umuraha min suwari dhulm waxa kamida suwarta dhulmigu leeyahay atasabbu fi sarf an-nas 'an al-haqq bi itharati shubahat wa shahawat dadkii baa diintii sabab uga noqonaysaa inay ka leexdaan yaa sabab ugu noqonaysaa maxay sabab ugu noqonaysaa waxaad ku furaysaa shaki shubahaad baad gelinaysaa meeqaad soo baxday qaar baa waxay la taagan yihiin xadiis nabi badal maarta meel inaga dhiga quraanka soo ma aragtaan waa shubahaad qaar baa waxay la taagan yihiin oo ayaalaha dad bariyan soo baxay warnimada nimanka nasaara iyo kristan xageed maxaad uga qaadeen jannada way gelayaan وربا وين الدعاء هانجر قاركود وما هذا جنة بيقليا نبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم وقول يمجر قف مغري أما ياركي أون الرومين أو نوع دونها إلا ونقول من أصحاب النار الله القرآن الكريم قال كليه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إسلام كواحد إنك دين وأحرق سنين يترتو يتحيبا إليه كما أقبل يوم خسر الدنيا والآخرة والنقنية مركز تقارب الأديان وحسكها من الظلم كمضة العيسوية موسوية إبراهيمية ورأي سكها مال سكنا معنا وهو الدعين وسكنين أوجد سنة هذيك كلهم نقف عن كل شركة وكورا العقل ما يست هذا هو يا هذيك شنبغلكم كان أنا شنبغلكم كان وهو ما يستنين كانوا مركز إلى يكتس الدين إن الدين عند الله الإسلام هذي لنا مركز ديمات ترى وظلم كان كهلا ومن الظلم من صور الظلم كمتها شبهات كاس أو لغو فرضات دين تود لغا جلي مركز بالبدعة أفكار لغو جلي وحيالا لغو فرو أين كبعي كان أول نوهين قال لما الصحاب لغو نغضو فجور يفسق لا فرو يومرنا آسا ظلمك وحاكمنا سورتيسا الاعتداء لو حد قدو لغو حد قدو نفط غفك بقاتل غفك ما تكدش بغير حق اسكواتك قراري بغير حق أنا بدون بالقراءة ولا جناها ولا لايا محو كلها نقل أورنجري السيسي والله يودك قارين الآن دخل السياسة هناك ما يسمى سياسة شرعية دينية وهو يمحل ولاي
طبعاً كم بدن بالجود الرابع العدوية أو غيرها مركا محل جود لدتك أن قالوا لا إله إلا الله إلى التوحيد سالود اللي يكتبك إلهي وأكبر الظلم من ظلم يكون موجة مركا بقتل أو ضرب أو سجن قفك ولا سكحل معنا وحريا وعلى لا يعني وعلى الله تمحيته دين ده شيء سمحيته تعذيب ولا عذاب يا ضب على قلينا يا ما يقدم للسوق لي عذاب كاسل وصمينا يا نبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا dadka adduunka ku cadaaba ilaahay baa aakhira ku cadaaba dadka jabaabirada waa dambiyada waaweyn nabi maxamed wuxuu sallallahu alayhi wasallam qiyaamaha markii la gaaro luqun naar asaabihi oo indhihi carab lagu hadlay naar tusaas oo jahanaba carab lagu hadlay leedahay waxay leedahay wakultu ila thalath saddex baa la ii soo diray inaan cadaabo saddexdan cadaabayo mid waa man da'a ghayr allah waa qof ilaahay wax ka sokeeyo u yeedhay oo maaragtay ilaahay wax garab geliyay oo tawxiidkiisa meel kaga dhacay ka kalena muxuu yahay waa kullu musawwirin waa dadka sawirada iyo taswiirta hadda caadiga laga dhigtay la nabigu lam yufarriq ma kala geeyni bayna almujassim wa bayna photography nabigu ma kala qaadin waxaana ku soo aroortay 36 xadiis sida ka warramay nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaa waxay culimadu daruuro uga soo reebeen lil maslaha daruura ama dacwadan hadda aynu maartay oo kala wadno سألوا غير فضوله أما ما جواز سفر أما ما وحيانا يدنا مارتي أيديك واحد وكلا والضرورة ضرورة تقدر بقدرها أما عادي اللي قدكتو وهو كل مصور ننكستو صور كا كحماشة أما ما كدكت الشقو أما ما بنيستا واحد لقاها ضيانا وواحد نفتله أما جيدها يقريها يواحد سواء مشكلة أما إله لمبر كصدحان كل جبار قف كستو جبار أو ظالم أو ضدك كو أمر تاجلي حق ودي حقوق ضد قاطع يلا نارت وحيت والله يسوع درقور تاجل تلايا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ويكون اعتداء الظلم وحين قريان قفك إرد كي سؤال واحد قدبه وأنا مد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكهل منا يوم العيد وخطبوين آخر كم مني إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وفي شهركم هذا وفي بلدكم هذا ديقينا يا مالكينا يا إردكينا حرام بإذنك إياه حرام بإذنك إياه سيدا ما أنت وأنت أقلنا هاي منا وبشي بلي حرمتنا أقدر وبلدك حرمتنا أقدر أي نقطة هنا ديك دادن أما مال تتقاضن أي ولي قد نقطة ساس النبي صلى الله عليه وسلم عليه مركا الاعتداء وحاكمنا إن بالغيبة غيبة إن أعطتك حمطه وأنه ظلمك كميدا قاضينه إلهي القرآن الكريم كما يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الله القرآن الكريم كما يقول وردتك إلهي ينبرهم إيمانك له إن بدن الظن يا ملاه أكتك إن بعض الظن إثم بركوا إثم هذا يستاجوزنا إبين هسرع رأينا هسرع راديننا ولا يغتب بعضكم بعضا بربك يوسف حماني أي يحب متالي أحدكم أن يأكل اللحم أخيه ميتا ولا الكهيل بكيس إنه يسوى بخت ميت نفتك بحري فكرهتم أن عيسان فكما تكرهون الصادون عيسان أنتان فكرهوا نعم تدك أضحك الشيكتان تدك أضحك الشيك ومركا وما الشيك وعلى إلينا دول بوارك سنين صومالنا واحد تري أما ليس حمال أما ليس حمي وبس كبر نيسان يا عم تكتالس كقليل صار مركا لو وريبل الكاو وينه كي دفور كبورة ورنيه ما أنت موقتها وحسمي وهذا شيء كلام على ورد متكلم كم إنني سمعتي مركا محيطة هاي نبي قاياك هاي ونبي كوك هاي مركا عندك هذا ذكرك أخاك بما يكره وواحد سقف نعيه وقاوي حوي ما هو دليله نبي صلوات الله والسلام عليه ويدنا عائشة أيها ولماذا غير كنت لهم إنا هاي أيها واحد حسبك أنا صفية وحاكوه فلا إيه قامنته وهو النبي يقول كلمة لا تري حدين لو ضرب بدأ ما بدل من وقاومت يتلي وقعد إنما ما حد أنا كي ما تقدر كديرها كي والله كي قبور كتاعنا كي بين علىها
كي كان وهو كم وهو عادي كدكتين ومن الكبائر ابن كثير وقصوا أروننا سورة الحجرات وحاجرتي لما الضمرة وقولي بالسنة كقولي ومناكسين يقولي السنة كيس لما الضمرة وحلويري منطقة مركزي ديك منطقة مركزي هل تدرون ما وقتي مع المنطقتين تدريان مركزي لما ما قرنا إنه وحال وادتك الحمل يسير رواتك لو عيلة لو حاط أنتان تاتكتان ضمير كايلي بكيس مركزي لين كيف نأكل سنة أنا ضمير بختي أول بسون الله ما نجريني واحد من يسين وضدك كايلي بكيس دلمين يسين أيها كدر عن ضمير كايلي بكيس أنا يسان وأنت أقول ليلة أسري بالنبي عبين كيل العلمية وحصام مرقام لهم أطفال إديانا نيرلي يخمصون وجوههم وصدورهم انت نسكيك على يعني انت نسكيك على العذاب عذاب القبر نبي جبريل بويده ما هؤلاء حي وهؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس واقول ضدك اللي بيقولون ويقعون اراضهم نفس قد مالك داعيه كاسوا مدقان كاسوا نصدمه كاسوا اوجي كاسوا فلان كاسوا كان وحياة الشيء ما تقحنا تحقيرك سخريه ومرانا عاص مركا وظلمك اعتداء على دها واعتداء كمذا النميمه كمذا وأنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة القتال قفك ضدك أنت قتال فعال جنة ما أقرأ في الآية القرآن كسنة مركو أهل الوليد بن المغيرة سقالك السفو طبعا وحي يقول لك عن علماء السنسيم على الخرطوم مشاء بالنميم مناء للخير معتد أثيم يا آخر الآيات وحاوي نميمتنا والظلم قفك أو قفك درتي ودي لك أنا مثلا قفك وشكتي وعلى يا أنت بركة قاتين وقارة جرم وهذا هو الظلم عين الظلم ما أنا وين لو قالوا مثالا أنصر وينه وحكمنا التنافس بالألقاب حتى وحكمنا يوم حيانا صورت عيلة هاي ظلمكم إن أتقفك قوية دمك أسنبي واريل العورهم أفتاقهم سنكبرهم نار قطهم سمعت بلايا أدوية دو أسنبي وأنا معاد كاكا دقاي هذا قوة الرجال صباح علي يدوت كلامك أبدا magac imaam la tariba magacyada muudo iyo magacyada waa laga dhigo wala faraha taagta faraha isku salaama marka taasuna waa arin dulmi ah suqriyada istizaaga kamida istizaaga waa dulmi ad qofkii ku jeesto ama aad aragto inuu ka aqli liito samaati وكان النبي يقول بحسب امرئ قف waxa ugu filan shar iyo dulmi ugu filan ay xaqira aqaa muslim qofka inaad aragto qofka muslimka inuu ka liito الله أنا القرآن كذا وقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن إلى آخر الآيات وكان آيات كان الله يسوع هذه متك مسخور كالوجه زي يا لقى إنه كان خير بدي هذا مركز توين تسليته وين هذا هو صدقته عن النبي كسر إن من تواضع لله رفعه هو سنك ودك إله وكرم قاضية لكن إنك سنكتاجا ولا بربرنا يا فأوي تنادنا والله يحرمها مركز ظلمك وحيانا ساكمدة صور الظلم وانصاف جلنا وحاكمدة الاعتداء ضدك أن واحد يقول بمالك هذا في السرقة ضدك مالك لا يدعو وعلى حاله وحالتان قلت تقول مدة إنه بدر جيتك لو يستقع حوله هذا اللبوه ما هو بلاد لقى خاطه حوله وصوص لقى حاله سنين أرق حولي اللي يقول يبت أمانة أتقاطه والظلم أمانة اللي يقول يبت الدكان كذا وسط أزمرسه وحي اللي يقول يبت قربرته حالتانك إدلاف مالك قفك ودشو أيها كمذا قصب حوليود كدعلو حوليود حيريسته وها كمذا صور الظلم كمذا وأنا متك أقدر أن تصلوا الظلمة على رأيتهم ضدك مضحضة مالك استهجوكين أما قال أشرك ترى مسلم ضدك هذا حد قبه وأطر وهذا وحقه هذا السين وهذا كما تسلط فرعون على قومه فرعون سيده الظلم قسمه وقال فرعون أذكر إنسان ذروني أقتل موسى ورجعتك موسى أندلي ما لا قارك حكومي وحنوك وبقنا يا إن دين تودا أو معناه دين إنه دين كفساديو دين إنه دين كفساديو سكستواته وحنبي كسر صلى الله عليه وسلم إن الله لا يولي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلده ظالم كوالوسوغا لكن مركي لقبته وحوي مال بلغا صنقها الله القرآن الكريم كان يقول إياه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سيد الله هلاقي ويعني أنكسر شاكيني وعقت الله مريد الظلم قليم
ama dadweynaha ku xadgudbeen ama naftooda ama xoolahooda ama maalkooda ama macsi iyagu ay soo yimaadeen ومنهم ظالم لنفسه sidaa ayuu alle uga abaalmariyaa inta dulmiga la timid oo magaalooyinka dulmiga la yimid oo kale u qabtaa oo halaagaa oo dulmiga u la yimid ama adduunka ama aakhira labadaba in aqdu alim shadiid qawlashada alle way daran tahay billahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyil karim shukran lakum ala husni istima'ikum jazakum allah khayran su-aashan waxay leedahay nin ayaan guri ka karaystay heshiiskana waxaa ku jiray in biyaha uu isaga bixiyo biyaha ma bixiyo xaqiiqdii se xatooye ayuu ku soo furaa oo ay shirkadda ogeyn ninka wuxuu sameeyey dulmi miyaa biyaha uu nasiiyo ma inuu xalaalba iska caddayntaas waxaa jira la yidhaahdo qofka marka hore sida xadiidkii ahaa istafti qalbaka horta hadaba qalbigaada isweydii al-ifmu maa xaaka fii nafsi naftaada wixii xoqaa dambi la yidhaahdaa wa karihta an yaqtalica annaasu calayk oo nacab tahay dadkuna inay kugu arkaan ninka isaga waxaan malaya biyaa waqti soo furahayo ma jecla inuu arko sooma mar hore in loo ogaado yani wuu soo xaraya adaaba sheego waxaa timi sariq uu kusoo sameeya wuu soo xara xatooyadu sheekh hadda marku ka hadlayay sheekh maxamed muxuu yidhi waxaa weeyaan misuwad maxaa dulmi waxaa kamid ah ictidaa waxaa weeyaan qofku inuu la imaado ictidaa oo xoolahooda uu ka xadgudbo isagoo sariqa iyo si walbaba sameynaya arrintaa iyada u banaano midda labaad biyaha saa ogsoontihiin marka